golaha wasiirada ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble waxay noqdeen wasiiradii ugu horeeyay ee xilliga kala guurka maareyn waayay kuna guul daraystay inay kuraas xildhibaan ka soo helaan deegaanadii ay ka soo jeedeen labadii jeer ee xilliga kala guurka ee sanadkii 2012 iyo 2017 golaha wasiirada ayaa udub dhexaad u ahaa sida xukuumadii Cabdiweli Gaas iyo Cumar Cabdirashiid wasiiro badan ee xukuumadahaas ka tirsanaa ayaa soo helay kuraas xildhibaan xukuumadii Cabdiweli Gaas waxa xildhibaan soo helay oo fursadii ay xilligaas haysteen ka faa'iideysteen soo xulidii odayaashii dhaqanka ee 2000 odayaashii dhaqanka ee 135 oday labadii ra'iisul wasaare ku xigeen Xuseen Carab Ciise iyo Cabdiwahaab Ugaas Khaliif wasiiradii arrimaha gudaha dastuurka qorsheynta iyo kuwa kale sidoo kale xukuumadii Cumar Cabdirashiid wasiiradii xilligaas jooga ayaa badi xildhibaano ka soo qaatay doorashadii ergooyinka ee xarumaha dawlad goboleedyada waxaana xubnahaasi ka mid ahaa wasiirkii arrimaha gudaha amniga dhalinyarada shaqada iyo shaqalaha faafinta boostada isgaarsiinta iyo kuwa kale hadda xukuumadda ra'iisul wasaare Roble hogaaminayo hanaanka doorashada inta badan wasiiradii ayaa ka soo waayay kuraas deegaanada ay ka soo jeedaan marka laga reebo wasiirka kalluumaysiga Cabdullaahi Bidnaan wasiirka biyaha wasiirka ganacsiga iyo wasiirka dhalinyarada iyo wasiir ku-xigeenka cadaaladda oo xildhibaan soo qaatay balse wasiirada ku hungoobay ayaa waxaa ka mid ah wasiirka qorsheynta wasiirka maaliyadda wasiirka duulista hawada iyo wasiirka dowlaha xafiiska ra'iisul wasaaraha wasiirka beeraha wasiir dowlaha arrimaha gudaha wasiirka shaqada arrimaha bulshada wasiir ku-xigeenka warfaafinta iyo wasiirka gaashaandhigga Cabduqaadir Jaamac oo isna kursi muddo ku taamayay guul daraystay in uu soo helo kaasoo loo xiray wasiirka amniga koonfur galbeed